رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد برre ayaa maanta gudoomiyay shir looga hadlayay dardargelinta hanaanka Soomaaliya looga qaadayo cunaqabataynta hubka ee muddada dheer saarnayd iyo shuruucda xoojinaysa higsiga nabadda Soomaaliya. Shirka ayaa lagu dhisay guddi ka kooban laba heer oo kala ah guddiga fulinta iyo guddi farsamo oo ka shaqeyn doona fulinta bartilmaameedka dawladda ee xaqiijinta in dalka si dhammaystiran looga qaado cunaqabataynta hubka taasoo lagu fulinayo muddo sanad gudaheed ah. xubnaha guddiga fulinta ayaa kala ah wasiirka gaashaandhigga, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka amniga gudaha, wasiirka cadaaladda iyo dastuurka, la taliyaha amniga qaranka, la taliyaha amniga ra'iisul wasaaraha, taliyaha ciidanka xoogga dalka, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed, taliyaha asluubta iyo agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay shirka ayaa xusay in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay in Soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka ee saaran taasoo caqabad ku ah dhismaha hay'adaha amniga qaranka. Guddiga ayuu kula dardaarmay in looga baahan yahay in la laban waajibka culus ee la saaray. Shirka ayaa intii uu socday waxa lagu gorfeeyay laguna turxaan bixiyay hindisharciyeedyada kala ah hindisharciyeedka hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka, hindisharciyeedka la dagaalanka argagixisada iyo hindisharciyeedka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. howlgallada lagu ciribtirayo khawaarijta ee ka socda gobollada dalka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dadka deegaanka oo iskaashanaya ay guulaha waaweyn ka soo hooyeen ayaa shirka lagu bogaadiyay waxaana warbixin looga dhageystay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaana ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ugu hambaliyay ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka guulaha ay u soo hooyeen dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.